kulanti wacan wanaagsan akhyaarta inay daawataan meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tasmada filmada si wada jir ah labadana janaal hadaana kale waxaad idinkugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay maanta laga xariiqay arrimaha Bollywoodka kuwaas oo la xiriirxanta jilaash filmada soo baxay filmada qorshooda kuwa goosgoosa laga soo bandhigay waxyaabaha kala xiisaha leh waan sahnay wala wadaagay kartiin daawadaashana ku taxan barta tasmada filmada iyo sidoo kale barta kale ilayska xogaha meel walba oo joogtaanna maalin wanaagsan jimco wanaagsan ayna hawada kale nahay وهكذا داود وبحنتنا وحن كبلاب دونا جلاج سنال شيت أيام مركان ودافعي بوليوود كيسو كلا إن دباتين كبوي كتكو يهاي متحق دقالة يحق دباته وكينا في المدى بوليوود كل هراء مركي أكشي كمار أو لكل ماي قدامك حجان كقيبت أوتر بردش نقول مع عويوجي أتجانث كاس أو سوكلا وكلا هلا أرما لحر بوليوود أي سوكر سنال شيت مركان وحيامد كل ما قيبت تاج هوتيل مumbai ku yaala aktarka sunu shita wuxuu ka hadlay fursadooyinka in filmada soo socda mashruucooyinka laga daawado qaybaha Uttar Pradesh soo kale wuxuu kaga hadlay arrimaha la xiriira dhibaatooyinka ka dhanka Bollywoodka ee social media la saddex qaaday kaas oo la xiriira ereyga in boolka lagu sameeyo filmada kaas oo sheegay in Bollywoodka yihiin kuwa filmo fiican la yimaado soo kale aan ahayn ayuu sheegay kuwa qabta shaqo xun ama shaqada darooyinka sida ay qortay Indian Express Sunil Shetty ayaa gudoomiye ku-xigeenka Adijanath waxa uu sheegay in arrimaha hashtag ee boycottka Bollywood ku yahay mid istaag kara ama la joojin kara hadii la dhaho wuxuu sidoo kale uu ka hadlay in ay sii kordhayeen dhibaatooyinka dhana wuxuuna uu sheegay in markaan iyagana ay sameynayaan shaqo fiican oo ah film jarista wuxuu sidoo kale uu sheegay ka ahaantiisa in maanta dadka u maleeyaan Bollywood ku yahay meel aan fiicnayn asaati waxa uu sheegay marka laga hadlo in ay jiraan filmo fiican kuwaas Bollywood ka ay sameeyeen wuxuu sheegay inuu qayb ka ah filmka weynaa ee Booda kaas oo uu sheegay inuu yahay film loo hadlay arrimaha ciidamada ee gudaha Hindiya wuxuu sheegay filmada fiican soo kale jiraan wuxuu sheegay si wada jiraan oo imaan oo aan ka wada shaqeynaa arrimaha si fiican aan ka horteekanayo arrimaha boycottka ee dhibaatooyinka ku haya qaybaha Hindiya ayuu sheegay كأهان وحول شيء هدي أنا حسون شتي وحنوها شباب الحريرة Uttar Pradesh تاجرش وده قاسو الشيء إنه يهينكو تاجر بحد سوق المقعسيين وحول شيء أنا رمان اللي بايتون وكيني كرتو حق دقالي حق دبعتبه هدي أنا لجور تنسده والشيء كل ردمك أكشكم أنه لكل ما يقدم كحيونك أتيناث قاسو كجاه لفرصدين Uttar Pradesh قاسو في المدى هالكاس اللي جايكرو سيدو كلنا لو ضاون كر في المدى ده waxaanintan ay soo bixisa xilli lagu dhagan yahay filimka bataan kaasoo dhibaatoon dhaxda kaga jira soo 25 bishan la daawan doono waxaana shalay toole la siiyay shahaadadiisa daawashada filimkaasi dhinaca kale waxaan isla eegi doonaa ajeen filimkiisa meedan ayaa markaan waxa la xaqiijiyay xilliga la daawan doono kal hore ayay markaan la wadaagna in filimka Ajay Devgan ee meedan in dib loo dhigi doono taasoo la xiriirta in filimkaasi kal hore ah in la daawado Febraayo 17 2023 asaatee filimkaasi ayaa dib loo dhigay waxaana rabaa in Ajay Devgan filimkiisa Boola marka la daawado kadib in filimkaasi tiyaatar la saaro oo ilaa lagu aadiyo Maarso 10keeda haatan ay waxaan maqlaynaa in film soo saarayaasha meedan soo saaran ugu dambeyn xilliga filimkaasi la daawan doono waxaan maqlaynaa in Ajay Devgan filimkiisa meedan in haatan la qorshooyo in la daawado May 12keeda ee 2023 arrintaas ay waxa xaqiijiyeen qolo u dhow filimkaasi kuwaas warbaahinta u sheegeen فيلم ميدان أي واحد الشيء إنه يعني فيلم رجل يقليه سيدو كلنا فيلم كان أي واحد لقوا مالك اللعب وين أجي دفقان أي وحوك عصر قلنا فيلم كميدان إن فيلم كاسي لصوف صح كده مركل داود فيلم كبولا وحنا أنت سرعي إن فيلم كاسي لا بدل هات نحلق إلى داونا تاس أي كنت أي الشيء إن هات ميدان لقيو إن داود ما يلبي تبان كده إلا بكون مستحيل لباتنكا كاسو فرصة كلا فرصة إن فيلم كور أنت على داون جون لبدي أي فيلم كشاروخ أنا جمان إن كور فيلم كاسي لصار تياتر أنت سكورنا ومعاشه حلو سو كل إجرام فيلمات كرياريان تو إيساتوانا كواس أو إذن تياتر لصار دونو فيلم كان ميدان أيا صار وحكازي استوديو إبوني كبور أكش جولة إيسوكل أنوارفا وحن فيلم كاس لو داون دونا تامل تلقو يما يلمبا فيلم كان وحي فيلم كل هور لو داود أورار تلقوه وهذا دابنا كل حال أوجاد وقدم بين كاتك أريان إيستوكل كريتي سنة فيلم كيكون مذوبين شهزادة حلقة تياتر ذا حلقة لصوف صحدنا كوس كيسا
filimkan ayaa waxa uu xiiso u dhigay kadib markii laga soo fasaxay kaartida koowaad ee filimka kaasoo ka mid ah filimada 2023 aadka loo wada sug leeyahay ay hogaamiye ka yihiin Kartik Aryan iyo sidoo kale Kriti Sanon kaasoo filimkaas lagu magacaabo Shahzada waxaana filimkaas uu yahay filimada markaan 2023 ku wada xiiso leh goosgooska filimkan waxaa la sheegay in la soo fasaxi doono 12 January kaas oo sidoo kalena loo sameyn doono ayaa la sheegay goosgooska soo fasaxidaankiisa xaflad waaweyn oo muddo 3 maalin ah socon doonto soo saarista markaan filim goosgooska ee 12 January ee Mumbai lagu soo fasaxi doono Shahzada nafsaantiisa ayaa waxaa Kriti Sanon kula dabaaldegayna halkaasi qaybaha la hori ayaa sidoo kale waxa la geey doona 13 January halkaas ayaa mar kale lagu soo bandhigi doona goosgooska halka sidoo kale Jalandharna la geey doona ee qaybta Punjab maalintii saddexaad oo 3 maalin ayaa loo sameyn doona oo dabaaldega asagoo sidoo kale lagu aadin doona xafladda Makar Sankranti xilligaas oo dabaaldega usbuucaas uu yahay ee Hindiya lagu dabaaldegayo 14 ilaa 12 January film soo saarayaasha Shahzada ay waxay sheegeen jacaylka baaxadda weyn ay ka helayaan daawadaashooda in ay tahay mid ka imaanaysa gabi ahaanba Hindiya waxaana sidoo kale sheegeen in goosgooska filimkaasi uu noqon doono mid ka weyn oo sidoo kalena dabaaldegiisa lala yaabi doono kaasoo hore aan loo arkin waxaana sheegeen in dhamaan qodada filimka aad u xiisanayaan in markaan daawadaashooda arkaan shaqada weyn ay geliyeen filimkaasi waxaana sheegeen muddo 3 maalin ah ee socon doonta dabaaldega kaas ku aadan mahadcelinta ee daawadayaasha ee filimkaasi sida jacaylka iyo sidoo kale taageerada ee filimkaasi ugu qabeeyeen Shahzada ayaa director waxaa ka ah Rohit Dhawan waxaana filimkaasi hogaamiye ka ah Kartik Aryan Kriti Sanon Manisha Koirala Bhardesh Rawal Ronit Roy Sajid Kedekar iyo sidoo kale halka muusiga filimkaasi waa Britam waxaana soo saar ka ah shabakada T-Series ee Bhushan Kumar filimkaasi ay waxay mid la daawan doono 10 Febraayo 2023 ugu dambeyn waxaan eegi doonaa filimada tiyaatarada saaran waxaan ku bilaabi doonaa filimka Avatar The Way of Water kaas oo rikoor soo kordhiyay isbuucii saddexaad Avatar The Way of Water ayaa wuxuu yahay mid rikoor soo kordhiyay soo 56.50 karoor keenay isbuucii saddexaad wuxuuna u noqday filimka ugu horeeyay ee Hollywood kaas oo lacagahaasi keena waxaana san jirin ayaa la sheegay film Hollywood oo talaabadaas kale hore u qaaday kaas oo Jungle Book oo noqday mid 30 karoor soo xaray isbuucii saddexaad asaatay filimkan wuxuu yahay Avatar The Way of Water mid ka dheer ilaa ay lacag gaaraysa 20 karoor oo nadiif ah marka loo fiiriyo arintan ay waxa ka dhigaysaa filimka markan lacagiis guud inay marayso 340 karoor waxaan u dhigantaa in filimkan uu gaari karo ilaa 367 karoor si uu soo qabto filimka Avengers Endgame sidoo kalena scoorka oo kala wareego filimkan ayaa wuxuu ku soo aadi doonaa sidoo kale fasaxyada Sankranti iyo Pongal kaas oo laga yaabo in qaybaha nidaam iyo andar loo dabaaldegi doono dhulweynaha Tamil Nadu inuu ka faa'iideysto sidoo kale lacag fiican oo ka helo halka Mumbai Delhi iyo UP inuu yahay filimkan xoogaa lacagiisa ay liitaan filimkan ayaa waxa isbuuciisii saddexaad uu sameeyay hoosda 46% asaata waa uu caafimaad lacagaha filimkan uu la yimaaday haddaba filimkan lacagiisa aan isla eegi doona isbuuc koowaad filimku waxa uu keenay 164.67 karoor اسبوع سبعة فيلم كواحد وكان 9.94 كرور اسبوع سدحات فيلم كواحد وكان كونتن 6.50 كرور ودرت جود وسدح بقول صدر سجال 6.2 كرور ودنبين waxaan eegi doonaa filimka Drishyam 2 iyo sidoo kale lacaga uu sameeyay isbuucii toddobaad ee filimkan tiyaatarada saaran Drishyam 2 ay wuxuu yahay mid rikoor soo kordhiyay kaas oo isbuucii toddobaad oo keen lacag u dhaxaysa 5.75 ilaa 6 karoor waxaan totalka guud ee filimka ka dhigaysaa 230 karoor nadiif ah waxaan filimka waa mid weli aan kala joogsi ka lahayn asagoo lacag fiican sameynaya tiyaatarada ee gudaha Hindiya isbuucii toddobaad ayaa filimka wuxuu yahay mid kaliya ka dambeeya filimka Yuri the Surgical Strike kaas oo 6.67 keenay waxaan uu yahay filimkan mid isbuucii sideedaad laga yaabo xitaa in lacag fiican haduu keeno uu soo qaban karo filimka Yuri the Surgical Strike waxay ku xiran tahay lacagaha uu keeno maanta oo Jimcaha Drishyam 2 ay wuxuu yahay mid markaan filimada ugu fiican kaas oo lacag fiican keenay kaas oo lacagiisa ay gaari karaan 235 karoor qaybaha Mumbai wuxuu yahay film ku garaacay RRR ee qaybta Hindiya hadaba waxaan isla eegi doonaa filimka isbuucii kood wuxuu keenay 237 karoor isbuucii labaad filimka wuxuu keenay 37.16 karoor isbuucii saddexaad filimka waxa uu keenay 31.41 karoor isbuucii afraad waxa uu keenay 8.92 karoor isbuucii shanaad waxa uu keenay 8.19 karoor isbuucii lixaadna waxa uu keenay 6.18 karoor halka isbuucii toddobaadna filimka uu keenay 5.25 karoor filimka wadartiisa guudna waa 229.96 karoor inta aan ku soo xirno daawada wararkeena muuqaalada iyo warbixinadeena maanta ugu dambeeyay laga xariiqay arrimaha Bollywoodka
kuwaas oo aan xiiso lahayn oo aad la wadaagi kartiin daawadaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ee iska xogaha meel walba oo joogtaan maalin wanaagsan ay hawdeen kale inaad warbixintan ka sheelag noo saar sidoo kale saxaabtiin la wadaaga wad ku maasantiin alaabsaad inoo dhiirigelisaan muuqaalada daawataan kan kiisa xigana nabadgelyo.